عليكم. سيدنا كيسان وحمان مرة أوطانية محل بيتاي إن المنطقة تيجوا أعطيني أو مشروع سيدنا كيسان وحمان مرة أوطانية محل بيتاي إن المنطقة تيجوا أعطيني أو مشروع نوعا وضع مرة waxaan idinka doonayaa waxa weeye qaybgalayaasha ardayda reer maxamuud xaalid adaatihiin si fiican waxa loo daawado si fiicanna waxa loo weeleeyo si fiicanna fariinta halka laynaga faro bulshadeena kale hal la gaarsiiyo waayo hawsha halkan ka socota waa hawl caafimaad oo bulshada wax u taraysa marka waxaynu u baahannahay in qof walba wixii aad halka ka faa'iideysato aad bulshadaada kula noqoto oo aad ka dhaqan geliso bulshada dhexdeeda waa mahadsantiin waxaan ku soo dhaweynayaa cidii hawsha waday wassalaamu calaykum warahmatullahi weli waxaynu ku wada jirnaa barnaamijkeenu halkan u nimi iminkana waxaan ku soo dhaweyn doonaa Siciid Aadan oo ah wakiil ka socda dawladda hoose Hargeysa isla markaana xisaabiyaha dawladda hoose Siciid ku soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم والله أنت waxaa aad farxadiya in iskuulkii Maxamed Axmed Cali ardaydiisii oo dhan in maanta aan la kulano ay farxadiya marka hore marka labaadna waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijkan oo ah barnaamij caafimaad ku saabsan caafimaadkuna waa waxyaabaha u horeeya ee qofku inuu ilaaliyo ay tahay taasoo wixii halkan ka fahantaan ay tahay ina guryaha laftiisii iskuulka laftiisii bulshada lafteedii ina intaasba uga faa'iideysaan si ay uu caafimaadkeenu u noqdo mid heer sare ah waxa kale oo aan kala isku baraarujinayaa ardaydu waxa weeye waa kuwa wax baranaya dadka kale bulshadii waxa laga yaabaa inay yihiin kuwa shaqaysanaya marka idinku waxyaabaha baranaysaan waa in caafimaadka laftiisa aad kor u qaadaan oo iskuulkiina ka muuqata ardayga xaafid gurigiisa ay ka muuqata oo uu guriga baraarujo yiraahdo waxaan sidaa ka daaya musqusha maxay tahay saabuun dhiga oo farxasho qofkii kasta ee musqusha gala waa in de macna idinka laftiina wax dhigtaan waxbarashadii caafimaadka ka faa'iideen ina dadkii u dhigtaan baa wanaagsan wallahi kulli in kasto iyadana halkan qaybta kalena la isku tusi doono waxaan ku wareejinayaa maxay tahay xiriyaha barnaamijka assalaamu calaykum waxaan ku soo dhaweyn doonaa saad ka arki kartaan boardka halka inoogu qoran barnaamijkan wacyigelinta ah waxa iska kaashanaya ururka wadaniga ah ee Soyonda iyo hay'ad caalami ah ama international NGO oo magaciisu yahay JASFI marka imika waxaan ku soo dhaweyn doonaa agaasimaha fulinta ee ururka Soyonda Yaasiin Jaamac Ahmed suu warbixin nooga siiyo barnaamijkan iyo sida uu qabsamay ujeedooyinkiisaba بسم الله الرحمن الرحيم aad buu maashay Siciid Maxamuud Kaayr abu Siciid Maxamuud Kaayr barnaamijkan maanta ujeedadiisu ugu weyn waa daraamadaas oo gudbinaysa fariin oranaysa qashinkooda daristaan cudur buu dilaacsha daraamadan runtii waa daraamo muddo gaaban soconaysa laakiin se fariinta ay gudbinaysa hadii sideeda aanu qaadnaan oran karno waxay dhalin kartaa manfacaad aad u weyn sida waan ku sheegay barnaamijkan waxa iska kaashaday local NGO Soyonda iyo international NGO JASFI ujeedaduna waxay tahay markii qiimeyn lagu sameeyay magaalada qashinku wuxuu noqday waxa ugu dhibta badan leh qof wal oo ay guri kasta qashinku soo saaro gurigiisu ma ka soo saaraa meel public ah ama baan dadku kala lahayn baa la dhigaa meelahan waxa ugu badan campus area of schools meelahan iskuulada activities oo public oo aan dad cidnaanay kala lahayn baa lagu daadiyaa taas waxay keentay wacyigelin la sameeyo wacyigelintaas oo la target gareeyo iskuulada marka waxaan isku dayaynaa qof wal oo maanta daraamadan daawada inuu isfariinta geeyo gurigoodii oo isku dayo qashinka وقشن runtii qashinka inagu qashin u baa naqaana laakiin se dunida ee horumartay ama dunida soo koraysa qashinka isaga dib bay uga faa'iideystaa oo recycling bay ku sameeysaa
maanta qashinkeenu waxa inaga qashinka ugu badan waa guryaha ka soo baxa adduunyada kala warshadu ka soo baxa haraaga kiimikada iyo ma garanaysa waxyaabo warshaduhu farsameeyaan kan inagu ay la u taaglaanayna wareeriyay waa kii ka soo baxay guryaheena kaasoo aan oran karo 50% haddii aynu si wanaagsan u manage karayno dib ayuu recycle ugu sameeyaan lana dib ayaabanu intifaacsaneen lahayn sidoo barnaamijka dhigayo halku dhigis waxa la solar waste management sidii loo maamuli lahaa qashinka adkaa ah runtii qashinku waa saddex nooc waa mid gaasa iyo mid liquid iyo mid solid ah inaga kan ay doonayna inay manage karana waa ka adkaa ah sanu manage karana wax weeyna saddex category kala saarno plastic iyo wax ka soo hara kartooniska iyo ma garanaysa waraaqaha iyo wixii la isticmaalay ma garanaysa iyo mid ah waxaynu cunto ahaado ma garad marka waxa la sameeyaa dawladda hoose iyo hay'adda SISF ay ku tala jireen sameeyaan godad waaweyn loo qodo duleedka magaalada Hargeysa godadkaas lagu guro saddex god la qodo mid qashinka ka soo baxa wixii bacaha iyo waxaan soft drink ka soo haray sharaabka cabitaanka ama maasaxada mid lagu guro iyo mid lagu guro wixii karatoon iyo waraaq ka soo hara iyo mid lagu guro wixii cuntada ka soo haraan cunno ama hotel ka soo baxdo ama guryaheena ka soo baxdo taasoo laga faa'iideysan doono laba siyood waa ta ka soo hadha plastiga iyo wixii soft drinka in recycle dib loogu sameeyo oo inta dib loo recycle gareeyo haddana xabad baro iyo dib ay u soo noqoto maasaxada lagu isticmaalo oo ilaa intay depreciation keedu ama intay dib u diidayso in la recycle gareeyo la joojiyo ta kale iyada cuntada ka soo harayana in la sameeyo marka hore waan ka yar fogeeyaa samaacadda in la sameeyo hawada inta lagu guro biyo lagu shubo kiimikooyin lagu shubo kadibna fertilization looga sameeyo beeraha looga sameeyo oo beeruhu ay noqdaan qaar uga faa'iideysta bacrimin ayaa kuwa ka cuntada ka soo hara ka karatoonta ka soo hara isagana dib loo karatoon looga sameeyo runtii dhowr jeer baa la isku dayay in la soo dejiyo warshado ku saabsan waxa recycle ku sameeya markii qiimeyn la sameeyay waxa la ogaaday qashinka magaalada iyo wadanka yaala hadii warshad la keeno in aanu raw material noqonaynin oo de warshadii intay 2 sano shaqeyso qashinka iyo dhanta wada duubato hadhow toole wax ay dib dambe waxa waayaysaa raw material taasoo waxa ka hoskaraysa in aan lagu dhiiran hadaba waxa imka la isku dameynay bal wadankeena qiimeyn lagu sameeyo qashinkan yaala ma yahay hadii warshad la keeno mid raw material noqon karayo baahida warshadaas ay u qabto inay qalab caydin oo ay ka samayso qalabkii ay hesho marka waxaan isku daynaa bal inaynu xashiishka guryaheena ka soo baxa intayna keenin meeshan oo aqoonsanahay gudaafadu ama meelaha publica aynu saddex meelood kala dhigano saddex category wixii bacya ka soo baxa soft drink meel la dhigo wixii kartoon iyo waraaq ka soo baxa meel la dhigo wixii cuntada ka soo harana meel la dhigo runtii daraamada ayaa xambaarsan daraamadu waxay sheegaysaa dhibta uu qashinku leeyahay daraamadana mar riwaayadan waxay inoo soo jilay ama ba awaanida maskaxda ka soo maaxatay waxa Saciid Maxamuud Gahayr iyo Xamse Cali Omar oo iyagu awaanada yar runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloo hadba ugu mahadnaqayaa maamulaha iskuulka Maxamuud Xamdi Axmed Balayax oo isagu nagu deeqay campus kale inaan ku dhigano iyo dhammaan ardayda ka soo qayb gashay shanta iskuul oo ah Qurac Dheer Guriyo Samo Cabdiraxmaan Gariyare iyo Al-Jazeera Secondary School iyo iskuulka amartado oo Maxamuud Axmed Cali dhamaantood aad bay u mahadsan yihiin waxaan isku daynaa barnaamijyada inay noo bilaabanto iyo riwaayad aad baa dhamaantood u mahadsantiin yahay agaasimaha fulinta ee ururka Sooyanda Masar Yaasiin Jaamac Axmed inta aanay daraamadu inoo bilaamin waxaan hadalka siin doonaa wakiil ka socda hay'adda Jasfi Mrs Isabella welcome Okay, salam alaikum. I want to start with a question for you. I'm sure you all know what waste is, but do you like waste? marka su'aasha weydiinaysa waxa weeye qashinka aad soo saartaan ma fahamsan Okay, understand. Very good, perfect. So, do you like waste? Why? Because I know, because waste stinks, because waste, in waste there are many diseases, so I'm sure you don't like it. But who do you think is the responsible for the environment and for waste? Who? The government?
Exactly. Everybody of us is responsible for our environment, because today we will assist to a drama, to a play, but in our life we are the main actors for the environment, for waste. So we have to behave. I mean, if, for example, for issue, if you eat some biscuits, you have the box, okay, the paper box. Where do you put it? In the ground? No. You should put it in the bins. There are many bins in our cities, in Hargeisa. So I mean, put it there. And the good thing is to speak about waste, is to speak about the environment, even with your relatives, with your parents, with your brothers, sisters. Okay, to pass the message, because it's very important we spread the message all over the society. Young people like you are a very important part of the society, because you are energetic, you are strong, you are active. So I think you can play a strong role in the environmental issue inside your society, right? Okay. So do you want to say something about waste? I don't know. كلي وان أبوان قرنا ما أنت دكسي سرقو شري exactly وحنا لا تدرون هذا قرنا لكن مهمة وحوي أن فرصة أن هالسنين نوقف هذه السنة سيدي وقف فرح بدنا نوقف هذه السنة هاي أن كلي أنتي تري وأنتي كن نقول معي لكن إن يروم قدرة أو حوي إن أوجا نقف كستا نجم بدي إنه مسؤول كي هاي صار ده قشنك أن قف كستا جروب كيمي جروب كستا قشن بوصو سارة maadaama adigu aad tahay qofka problemka abuuraya waxa muhiim ah haddana inaad adigu noqoto qofka xalkana keenaya sidoo yaasiin jaamac uu sheegay adduunyadu ulamo sidana inagu foobiyada ka qabno qashinka kama qabaan laakiin qashinka laftiisa iyaga foobiya ka qabaan marka kulay anaga mandate-kan kula shaqeynayna halkan waxa weeye wacyigelin ku saabsan qashinka kamida waxa kamida qodaal hogag loogu talagalay in la geeyo aakhirka wixii wastiisa aan shaqeyn kareynin waxa kamida tanaagta ku aragtay meelaha kamida laakiin waxa weeye waxa loo arkay inay muhiim tahay in ay idinkuna ka qayb qaataan qaybtiina waxaan la wado Nicole inta idin la inta weeye Okay. Oh, okay, so enjoy the show, okay? xilligii ay inoo bilaabmi lahayd riwaayadda magaceedu yahay qashinkoo aad daristaan riwaayadda magaceedu yahay qashinkoo aad daristaan cudur buu dilaacashaa intaanay riwaayaddu inoo bilaabmin waxaan iskiin bari doonaa jilayaasha riwaayadda jilayaasha riwaayadda waxaa ka mid ah deeq cabdi xasan oo ku matali doona arday magaciisu yahay isla deequun waa muhiim ardaydeena iyo waalidkoona ogaado waanadoodana qaata waa si wanaagsan waa la qaadan doonaa waanada uu deeq sheegayo waana la arki doonaa iyadoo balbalaaran waxa sidoo kale ku xigi doona Mustafa Faarax Xuseen oo ku matali doona macallin dayib bari waa shamac daaran oo dadweynaha u baxaya duruustiisa ogaada caafimaad kula deeq waa la ogaan doonaa shamaca shidan iyo duruusta uu bixinayaba waxa sidoo kale inoogu xigi doona Khadar Cabdi Ibraahim oo ku matali doona Dr. Darbane waxaan haynin digtooro duubibtiisa la qaato dadkuna way yaqaan waa si wanaagsan Dr. waxa inoogu xigi doona محمد يوسف حسين oo ku matali doona arday magaciisu yahay daacad ardayga ka dadaalay duruusta saadkeed oo ka taxaninta cilmiga durdurayn dirsanay wadaantii faydhowrka caafimaadka kaalintiisa ka qaatay waa yahay waxa inoogu xigi doona Sidiiq Maxamed Nuur oo ku matali doona nin reemiya
magaciisuna yahay doolaal xoolihii degam weey daaqii cuni waaye socodkii darban waaye ee nin daweeyo jirkoodiiyo diktooriya igu yeedha waa loo yeedhi doonaa dictor waa yahay waxa iyaduna qayb ka ah riwaayadan nimco Saleymaan Maxamed oo ku matali doonta hooyo daabo waa muhiim faya dhowrku iyo bulshadii ka fogaata cudur baa ku dhex faaf dardaaranka hooyadana waad maqlaysaan waxa ku xigi doona isaguna Mubaarak Xasan Axmed oo ku matali doona Aabadaya dadku way qaldan yihiin qoonsimaad badan yihiin hadalqaadka xashiishka ruuxii aan ku maqlaa isagaa qoomamayn qayladhaana dirsan marka quba dhiigiisa bal waa inta ku maqlaa waxaan filayaa inaad barateen jilayaashu waxayna odhan doonaan kelmad wadareed aakhirkana waxaan idin kala bixi doonaa jilayaasha iyo riwaayadda waa xiisadaan ugu nacay xiisadaha talo macalinka maana uu joogin maanta waa bakane marka soo yardayoo dabciyo dhigihiina dareenkiinaysiya waa dardaaran weyna idinkoo dayacaynin dabaaqina u sheega caafimaadku daruuriyo hogol weeye daayso deeqilah bixiyaayo diin islaamka ku taale oo tudoorka u roonoo darajay wadataae deercad weeye dhalaayo shaqsigii dayacaana dalanbaabi la jaaro wax kastoo durayoo dibindaabiyo u geystaa jigtoonaan uga yeesha dareenkiina ku fiirsha qashin waa mid darnaan leh haddii aad daristaanna cudurraa ka dilaaca dadyawgoo dhan xasuuqa markuu roobku da'ayo biyo daadsan hortaada duumaday dhalyaanoo kaneecaa ka dilaacdo daraasiyin dhan gumaada cudurraa ka dilaaca odayaasha dubeeye islaamaana duraayo diifadaayo carruurtoo da'yartoo dhan gam ka siiya inta aana dayoobin jira aanay ku daarin digtoonaanta ogaadoo fayadhowr ku dadaala hortagaa adabiiboo dawadii ka wanaagsane digtoonaanta ogaadoo dabuubtaana xigaalkiiyo dariskiina u sheega ardayay waxyaabaha la yaabee gabgab weeye warkaas nin durbaan iska qaatay ilaa ku dalbalaaye marow deextan aad sheegtay iga daatagi mayso gacan weeye qalaalo dadna kaa maqli maaye dameeraha hore duwaan qashinaada daboolidhaa ku aabba ku daatay duleedkii gurigaanu sanadaha deganeen amaanu dooma ka qaadno dulanimo nabadoo tacanuu naasiibo suban maanu la diinno arwaxa xeradii badaygani ma dabeecad xumaan baad sida noogula dooday mise waa doqonnimo midna kuulama doonina dareenkaa qabo weye dareenkaagu sax ma ahee taalib fiican haddaad tay nalamaa duryanteena dawri baad tay malaae qashinkaad dugsanaysa cudurraa ka dilaacee dabin baad ku jirtaaye durkiyoo ka fogaada hargabkaa dadka laayi doofaarkaa laga qaaday isagu ka dilaacay دراسينك كلها دوت هذا كلها تفسير وشراء سكات البشير سكات حرليتي دوت هذا دوت المستيس وين ما قال لي حشيش كان ما أنا يفهم هذا يا حنوكة اللاعب هاي دمان هذا شاهد يا قلبي كيس بدنا ما كي هرت تقول يديك سبيل بخوري ما ده إن العذر لا دري سهل ما ترى إنسان ينو تبع كي يومي كيني عشان هذا لا لين سكت عفوا يعني هذا تسعشان عيا عذر هذا الدلاج يلا كفاية لا يا كذي لا عيا هاي سكوا أحد البنات إما كان دريمو مسكحتي درجونات أو بجد لا أفهم ميتو كم على dadka kalena gaasiin aniguna markay iyada isaga waan way uga dhigi dhibaatada war dabiib baan islahay imkaadu wax dareentay sidaasun ku dadaala macallin waxaan barkanayaa waxaas lahaaba dugsi baa bay tarayaa ma duqana u sheeg duqa qalbigaagu salaame aaba khayr ma jiraa
qudhay waa nabad eegee qatar baan saarkayna qaabili doonto qaxar weyna abuuri khatartaasi maxay ahayd qayoodka da'aya baa soo qabaxaysa kaba sii qoto dheer qaladaasiyo fawdiyo maqalaanka doqoda suuqa qaha kaba sii qoto dheer qaabka aad u hadlaysiya waxaan darinayso qumana fahmi waayo marka taxkana warka aan qayaxo aan ka qaado daboolkii qayla weyniya dayrta qarniyaashii la dhaafay qatar bayna agnaa loo qaatirkeena badbaadiya qudhan waa sigana qeyraqeyriya dhaanjar qudhun baan barkanaynay qashinkaan dugsanaynay qaaxada ka dilaacdo shubankaa la qaleeno inta qoomu kumaaday qiyaastii ma kasaynoo qalbigeennu ma koobo wuxuu qawdaranaa qilib yaaba ka siiya qashinkaa qisaayso adigoo qorma uuna qumana waa dhex joogin ilamaa qaadan maanta dhexdiisaa qutumeen ma xanuuna ka qaado aba qiirada gaaban ka qaliga yarbileeya nin qalbiga hunaa nin ku akriyey qaafka u hanaa jahli baa ku marqoonto quful baa kuga awlan fulihiisa la qaatay habiil baa kudan sheegee aadoo waana la qaado maqawa yaabee qashinkaa admaantay qaranka hadda halkaa duugan shaqowraa ku yeelan horta aabba qabow iyo qun yar ila kalaam qodob maaha ciyaaro qushi la iskaga dhaafee inta aanu khasaare qoomama ay ka dambaysayna qaabilan aabbo waanadayda iga qaado waan adigu kuley maxaa qaadanaa walaalow hiiladow hiye yarkaa qiirada wadow waxaa tahay qaabadii dharaaqii qalinka maray daafiye khasaare intaanu dhicin kacya fadhintaanu imaan ayaa dhiigaaba qurme iga qari naftaa aabaheedhe aabay dhegaysa may aabba saad mooday maaha aabaheedhe si kale ha u fahmin waxa weeyaan qashinkan inagu iska saashanayna inagoo keliya maaha dadweynahoo dhamme waa sidaa waxaad arkaysaa guri kasta isagoo hortiisa xashiish yaalla waa halis dhibaatooyin baa ka dhasha xanuunaha ka dilaaca dadka oo dhan gamaada marka aabaheedhe inta aanaynu halis ku gelin inta qashinkan aynu barkanayno waa inaynu iska ilaalino deegaankeena nadiifino sidaasana aaba yaa fiican ma taladaydaad saa ku diidaysaabo qashinkaa dalka yaalla ee dadiriyada tuulan qolqolkayga aan keenay ruuxii aan aqbalayo aqalkaaga ma yaale aqalkayga amaasii ubadkaygu saxeexay alaya aabahay wax ii fahansiiya halbaa qoorta goy asagayga maqaadi yatibaynu u wiilan qarabaa la uurin qoysaskiina cunaa saadu qadidi doono haddii aad kumatay dhinaciisa ka leexo haddii aad qaldantayna haddii aad qaldantayna adigoo waxba qaylin qalalaad adigoo waxba qaylin qayladhaana lidin qabiilkaagana duulan carqaybkaama ahayo qasoylaaylagee qawl aan iska saarnay oo midkeena quban isagoo la qaba kaasoo qurqure oo aabaheedhe waxaad dhibaatadu innaka unbayna saamaynaysaa waa halise innaka ta adiga kugu dhacda ana igu dhacday ta igu dhacdaana aday kugu dhacda waana qalka sidaa ku wada joogi maynaa aba anaa qalin aba adiga oo aaba talada fiican meel la isku diliya dahabkii aan dhalay hooya daacadow duhur weeye oo waa daalantee dugsigaa tagtiyo daartii iskuul turistii wacna ma durduurataan waa daadaxyo shay darajalo loo dabaaldegee casharadana dahab dacalkiisa dhigi bali daalacsi hooyo doorkan bareen dadaalaya dalka lugiimo sheedanaan loo xanuun daarayo daacunugii doogidigle dheexdana u sheeg ruuxii dugsida qashin daasimeed inuu xanu dhex dugo doctoorka xuso waa inuu dawladi meel karsan ku dhex daadino aan dugno inaan qaban qashin alla ilahay bal dirac barra daacada dugsigiina yimi dun wanaagsana turbaanbaa habboon ilaa maadaadii ayaydeen dahabo awowgeenni dool dadku waa yaqiin dunjigaynu nahay dadku waa yaqiin dunjigaynahayn inayn daadaxnahay dulku waa yaqiin inayn daadaxnahay maybaa mahadaale hooyo daadaxsana damiirkeeda wacana iyadaaba digtoor ka diran anaga intaasay dumar dheer hooyo markay macallimiintu ilaahay maxaa ku saaray inaan keeninta kubadda subaxna wayda maskaxda faydi markii laga dhahay magaalana waaba indhasarcaadba yaa gaari baabana jeedhi talo meeshana maxay adiga soo dala doolaa koorka duulinaya degalka ka jirma
lagu nagala qaaday dagaalkaan ka jarmaaday maxaa taala ka dooni haddii aan sadeliisho kuma iga damiina balinaana duulaan weerar aan dalbadeen dunyada ku dhacay bilaadna xadaabaad aan sugaa shigno horta dee warwarkan aad dadanaysaa iga daadegi maayo dagaalkaaga hayso dantaadu bedelin aan warkayga daliishee ninka daartan fadhiistay doctorkii maadiga aniga ana dictooreed waxa ku dara sheego dictor xoolihii xaaqme waa kastoo la dilaacana darsin baa hoganaya madaacunka waxlaaya ducooyin ka dilaacay daacun waaba sahaale wax kasii daran jaarne gudbaa daristeen ka daro dibir wax kasii daran jaarne macaal baa idin duubay wax kasii daran jaarne doodahaaga caddeeyo maxaa dunyada xaal andoodayda caddeeyee dalay baa yimi ciidda neefka maalin yar daaqana kaga duuma caloosha dheefshiidkii ku ahdeero xoolihiina dishooday geedka uu dulka fuulana dogo buu ka dhigaaye dawadeedii nasiida adigaa sheegtay doctooroo dadka oo dhan u sheege nasii dawadeedii da nasii haddii kale digriiska iska bixi oh my god haddaan ku filan bacda haa waa iyada wey ii baan kuudhiniyow allaa daayina weyne kuwa dunyada raaciya miyigaa dadka jooga damiirkooda yara waa intaad yara duuduubto oo dabka honuu sii shida maa dushaa kaga tuurti ma intaasaa dunyadaadii iyo dhirtaadii iyo dalagaagaba dhiman yaa balada ku soo celi duuboo intaad yar duuduubto macna maaragtay markaad caqaarta ka cunto intaad yar duuduubto un dabka ku rid geedkuugu badbaadaya horta heedhe dictor aniga miyaad taqaana oday dhaqameed baanahay ka mida dadka lala tashado laakiin midhaasida way seegtay horaa loo yidhi in habaradhashay halma seegi waayee kolay talooyin badan waad soo goyn jirto gara badan haa dee way iga muuqataa misaagtay taasi tadambaba laakiin dictor midna ku darso dawada waxaan la yidhaahdaa maaha ta quraaradaha oo lagu shubee dee taladuna waa qayb dawada ka mid ah yaa deegaanka waa nadiifinaya imaka yaa sidaas baynu isku ognay waa sidaa dictor waa sidaa xibkiisiyo muuqiisa ragsan maalin aan fogeyn buu meseejii ku soo diray moobilaan lahaayo wixii madar iyo xanuun baanu darisno minankaan ku noolaa masiibaa helasho cudur baa mirayo midmid baa fayoowe carruurtoodii maalmahan mawd bay u dhowdahay bari way ma tagayaan muruqoodii wuu tegey shuban baa mirayo matag bay la liitaan gebigoodiba waxaase maanta noo eg mawlana marino adna macalinkiiyo faatixada soo mari anigaa kuu tilmaamaya imankaan ku tilmaamayna kan intaa kor yarahayuno inankii garamo maayo inankii waa horta waxaan ku weydadku maxaa dhahay kulla fidma cindagee waxaad tahay soo ma aha ninkan waxaan sayniska lagu sheega u soo dhigdhiga waaba ninka raadinaya wallaahi waa qudhiisii carruurtan ku soo karinaayay tan iyo tii aadan cadde qashinka ayaa tiri qashinka cudur baa laga qaadaayo fankay baa ku jiro virus baa ku jiro waxaad ku hadashay war carruurtan aad qashinka u barkinayso way ku xanuunsanayaan ka daayimsaan ku hayso saaka ma buko war qashinka dantooda ku jirta adaa kuliye ka qoob ka qaaday saaka hadaba soo ma buko imika wuu qufacayaa uno garan maaye hargab oroma iyo hargab garanwaa iyo hargab xarasaaf iyo waxba ahayaba dana khaaturtuna soo yiraahdeen garan maaye yarkee waxa adigu ka qaaday shiishkan sida dadka iska bas oo sida u basreeynaade meesha lagu basriyo ku bas dee maxaan ugu basrinaya xashiinka haddaan ka qaadaya wax siinaya haddaba ha lagu dardaray dhex fadhi waarana lagu dardaray badayda ka bax maadiga aan dardarayay waaya ilisho waaniga carruurta igu soo baxeeyaba ummaddu shuban iyo waxbay ka cabanaysaa oo caafimaadku ma habbo in xashiish muda iyo masaabiir la qaab yahay caafimaadka uu madax cudurka mataaniyo dhaxaan u marinaye haddaad maalintii hore maqli leedi wanaagtay wiilkaaga yaale oo maxay soo furay labaad muusanooday murugiyo walaace waxaa maanta xaajadan maaray karaayo diktoorkaa magaalkee mididkiisa waradgaadh urturu jawaana fulmayaa bay noqonay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
maxaa dhacay maxaad ka caawinaysa maxaad waday waxaan waday ku yar baan waday haye toddobaad goorta uu qufacay haye qofkiina ma qabata ku raacsan haye oo ma tagaya ma tagu daa oo uu qufacay uu haye de waxay ku yiraahdeen qolada khaatiir oo kala dugeeyayna harka waxaa saaf iyo harka kala waayo oo baas ku raacay ay yiraahdeen haye mada dubay kama soo haynayo oo qalin lagu soo biyo haye ee bandhigto ka war xanuunada dadka miyay ku dhacay bal waxaad wax iga sheegtaa inaan ku muxuu astaami maxaad ku aragtay xanuunadeeba waxaad ku aragtay bal wax iga waxaan ku arkay qofkina waa weyn asaas haye laga yaar haye dimiya ka xiyawaya haye ee waxyaabaha saaf waa shuban malay uu leeyahay oo isku kama waxa la saacadu صح صح هذا أنكو قرت بل فيندور كاجي دهان كاجي بل بيات تكون ناشف بل وحيد غير شيك شيك هو دهان كنا والله هو ما يلاقي غير شيء هي هو ده تنتهي بالسي هي وعكنا والله هي هذا الجهاز كله يعني هي عشيش هو حوي بركين نوية هي فراش هو حوي ضبط هي كذا هو حوي يعني ضحوا هي حوي وحيابها حصار هو ده كله haddaba anaa mid kuu sheegaye inankaaga adaa gacantaada ku gowracay adaa dilay waar maxaa ku helay waaba yara derderay oo bal sheekh igu yeedha waaba nin kale waar maxaa helay ya hor muxuu yidhi muxuu yidhi dictor muxuu yidhi alla wey guntiga xunde waxaas baad gunti baan garanaynaa muxuu nooga dhici waayey imkaadna leedahay muxuu nooga dhici waayey waa guri dambayskii ninka saqiiray allah yarxam araaximiin ayaanu leenahay dictor waxay hayaa horta waa nafsi baan gurtay alla haddana haddaan waanadii iyo weedhii xiftiyiilaa waaneeday wagartiyo weji ka bixliiteen wakhti muujinaayey waan daadufeeyey hadalku wiilkaygu waayayla dul taagnaa haddaan weel ku ridi lahaa weelayn lahaa idil wadnahana u furi lahaa wadhimay raacdeen walaac maan is haragneen wiilashayda cudurkani ma wanjaafilaynoo wadkumuu ilaayeen waalid baan ahay dhagar qaba alla haddana waageeradaydiyo wadiiqaan ku noolahay haddii aanan wadhin shay cayayaanku weheshado walwal maan arkeenoo wayda maan gureene reer wacay sidoodaan helilaa wanaago cudur iyo waxyeeliyo wayiig maan arkeenoo waqal iyo dhul rooblaan dhex wareegi laayo wacan caafimaad baa wehelii ahaan laa waalid baan ahay dhagar qaba haddana wacad iyo dhashaydii wacad iyo jibcaaliyo wadartiyo dhashaydii wiilashaydii fiicnaa wadkan dhigay agtooda ayaa wiiqay maantee weynow ilaahow waxaan taagnay waaq leh adigaan wax waayine walad iyo carruur wehelii ahaada weynow isii bulsho yahay warkaygiyo waanadayda dheehdo waddadii ha marinina waddadii ha raacina waxyeeladay marisay eed wada arkayseen iminka tulo maxay talaa digtoon kana uu saqiiraya kan dhawa wiilana muxuu raacayaa oo iswada raacayaane haye kii guri dambayskii muusiqeeyay dabcan ardayguna wuu ku xigi very good adiguna waad ku sii haye deegaankiin iyo bulshadiina wada ku xigi haye dawadaasaa kuu qoraya maxaanu samaynaa anti dheeraariya la yidhaha anti dheeraariya asal qaadanaya haye magaceeda iska daa haye farmasihoo baad tegi haye farmasihoo markaad tagto dawadaasaad leedahay haye oo doktoorku ii soo qoray iga iibi haye dawadaas baad iibsanaysa haye qashinkiina haye waad imika saad u sii socoto ayaad guri waan guri ma fahamtid waan guri yaan lagugu arkin barkintayda waa digo haye iyo furaashayga waa dama haye hub yaan lagugu maqlin dabcan deegaankaagana waad gaadhsiinaysaa haye waad wacyigelin iminkaan wacyigelinaya dadkana waxaan leeyahay xashiishka iska qaada
ديل هموديني هاي أبا كو رميا هاي شيء هذا دميو طبعا جوانا ذينا هاي تربان حالة هاي إن شربان كدقيا فيدور جوادين وادو حنولش دير روح الميو دركين بالعنسة وهذا كلام موت وأنا قاكره وأحطها ندي ويان داول عيال ويان تا خليسة ويان هاي لمدين وقالوا هاي يمكن يقولون قشوار دفسكو عدو كوجود تو ودابدي يو العيال مويدو قشك دقسيق يلا شي سبا ودوني قالوا ميشير بسافو قلنا يا يو ورتي عافمات كشيء دوا وسود وينو عمر بود بايا دلها ويقو ديغا راعو دمي قيبهاغنا ديباتوين بدا وقعرتها لا موقتي وقعرتها لا شيء هيدر باحد انت انا كو دحين دابد وين سميسو قشي كان دغ ماشي hore loo dhigayo kana dhor wax faabshiyo baalalay dhamaanteed hadii kale dhigi hebel waado kale hadii kale dhigi adigoo kale ha dhiiri jeeda oo qodobku qaada qabanada aad hayno kafaar wajihiyo farta aad dhaqan cuni saajaha wadiga calaalay ha wadana qaado waa yahay doctor horta imaad sheegin cudurka wiilkayga ku ii kaadi wariya abba hadda ka garab hadlaysaa stupid شوبان بالي ده على قاعدة حشيش كا وكيف بريء دوين دايرتي دوين ده ده كمريء قام توي شوكس لا هي بعد كم رأيك بدبادية هاي حلال نقول تستيني هاي إمك تصالح قوتي مقتي هاي شوبان بالي لا شوف وين حدرسة ويا دكتور واحد كويدي دختري دلكينا من دبادي لا دعل laga deeri samaho nimaan duuniye heli karin looma diirnahaye daway doctorino iska daaweyniyo doctorino mar eege dawadaana loo helin taas laga yeelaya waxaan dhibta ku haystaa anu waan dareensanay inankiisii dhintay baa tahay farmasiigana ku diray aniga moogtay dambaaba waad u tegiyoon halka waxaan kugu qorayaa free moogtay waa lagu siinayaa moogtay waxaad u sheegtaa ilaa iyo maalintii anigu waanwaanaya aabbahayn waanada iga qaatay yeerayga weeyaan malaa wuxuu islaayna kaaga yar imaka balag feedhaa qaar bay saban waa isaga igu dhuftay markaa wuxuu wanaagsan u sheegaa u yeelyeelaya inuu waanadeeda qaato wixii wanaagsanaa soo sheegiyo inuu aabbaha iga qaato horta waxaa la yidhi nin meeli u caddahay meeli ka madoowe meel baa kuu muuqatay balse imika waad iftiinkii wuu kuu baxay inankaagana waanadiisa waad qaadan yaa talaa wax lagu gaadhaa kaasumu dhimashada ka ilaasha hooyo daacad maanta milic baa kaa muuqatay waxay madowgan ka aaskoo ku maqnayd ba geesigii aan dhalay hooyo dahabkii aan dhalay hooyo daacadow duhuru dahabkii aan dhalay geesiyo nin baariya bidda aan garaad lahayn lama baal istaaje boqoroo wallahayo mahad baan burqanayaa ubadkana mid baradheer daacad baad i siiso mahad baan burqanayaa inta beledka joogtana hooyo baawar iyo sharaf bilad baad u dheerto hooyo baawar iyo sharaf bilad baad ku dheerto waayo hooyo PhD barashadana ogow PhD adoo sideen ha ka dayn boqolkiiyo cilmi baadistoote alla ilaahay wax tahay wax bilan bilis loo arooso bayd looga hoyo guri loo bishlaata riwaayadii magaceedu ahaa cudurku aad daristaan qashinku aad daristaan cudur buu duclaashaa intaas ayay inoogu dhan tahay laakiin waxaa inoo raaci doona oo aynu borograam ku soo gabagabayn doonaa laba gabay oo inoo kala akhriyayaan deeq geedi xasan gabayga uu inoo akhriyayo ama maansadu inoo akhriyayo waxaa la yidhaahdaa digniin caafimaad dadkayga u dardaaran iyo iga digniin weeye deegaan wanaagsanidu waa diinta qaybteede dalka waanu dhalannaya ilay debad kamaan imane daryeelkiisu waa waajibaad doodka kaa saaran daayar iyo cirool iyo runtii dawlad iyo shacaba waa inaan daryeelnaa dadow saxadu waa dahabe dubaaqii wax garanayabaa jecel dhul daahire damiir fiican ruuxii leh baa samaha doondoona dad horaa ka mahmaahay oo yidhi dareenkiisa dawadiisa cudur aanad helayn daydayaadeeda doorka hore ilaashaa ka wacan saxada deegaanka dunjigeedu waxay tahaan murtida uga dan leeyahay dariiqyada magaalada dhammaan daaf ilaa daaf doc kastaad ka eegtiyo guryaha dacalladoodaba dariiqyada kuwii ugu wacnaa quruxda loo daayey
dambasiyo xashiish iyo hadhaaquru waxaa daadsan innagaa dadkayga u dhigno waana doqoniimo damiirkii wax lagu garan jiraa suulay door hore damayaan ka nahay garashadii doorkan maantaae docda maynu dhiganeen xashiish qurun la darisneene dabool baa inugu foolare maqal digniintaydan dahda iyo intuu yaal xashiish hoyga dacalkiisa dariskeenna weeyaan jirradu mana dareensanini duqsigii iyo xanuunsidihii baan degalan laalaaye doon buu u yahay fayras iyo ehel dilaayoo dhan daacun colooluu dhalaa duuma iyo halise degdeg uga hortaga fayras iyo cudur dilaacaya intaasuu gabaygaasnoo akhriyay deeq geedi xasan waxaa inoo raaci doona gabay kale oo uu magaciisu yahay deegaan la daayacay gabaygan waxaa inoo akhriyaya mustafe faarax xuseen بسم الله الرحمن الرحيم تحدث waxa la yiraahdaa deegaan la daayaco waxay ka waramaysaa dhibaatooyinka inaga haysta dhinaca deegaanka dhibaatooyin nagama haysato kaliya ta qashinkee waxay inaga haysataa deegaanka oo dhan dhinacii kasta adeegtaba haday noqoto dhirtii la gumaaday haday noqoto ugaadhii ka tabargooday wadanka haday noqoto dhulkan xaalufay meeshii aad salaacdaba dhibaato inaga haysata deegaanka oo dhan marka bal waxaynu isbarbar dhigaynaa deegaankii hore marka lagaaga sheekeeyo iyo kan maanta aynu ku noolahay farqiga u dhaxeeya marka waxa ka bilaabmaysaa daliil gabay murtida duur xulka ah maanso wada deela jiiftooyin darandoor iyo heeso wada daaran nin waliba dacuu kaga hadlaa dawga loo maree aan taleeyo maantana halkaan diiradda u saaray tulahaan haddii aan cabiro quruxdii deegaanka waqal daraaray miraalada ay mayay darooraya fadada calka laalaadiyo dhibaca sii daayay daldhameeyo lagu doogsadiyo hogol daruuraysay hadduu dirirka roobka oonkoday dunida maansheeyo hayadaadsan laagaha durduray labada daamoodba dagaalka iyo kaymaha markuu daadku mulaacayeeyey durbadiiba dooggaa isxidhan maalmadabadeeda tixisiman dareemiyoog baa dibi cusboonaaday toomaar bislaatay iyo tigaad lagu diraac gooyey dal barwaaqo deegaan camiran geeda daba shubay umaalka wada dayrdhaliyad yahatay naaslaydu jawi dabacsan doog iyo ugbaad lagu damaashaado daruur hibiti qaysiyo gudguda dacal ka soo horay dabamulacale daalleeb curdina ramashi doogowday taafaha caleemaha istaday damalladii saacay ubaxa wada dilaacay iyo midhaa dariga laalaadshay duyuur caynbacayn iyo shibra cadhafka duulaaya qiimada ildoogsiga ninkii daawoodaa aragiye deegaankii quruxdaa lahaa lana dalxiisaayey ee lagu damaashaadi jiray waa la doorsadaye duray baaba laga qaadayaa doorkan maanta dabaylaha waraaqaha sita iyo bacaha duulaaya iminkaa dariiqaad martaba araggu dida deegaanku doorku lahaa waa la duudseeyey daldaloolo badan baa jiroon daawo loo helin dayacaaddu meeshay ka timi waa dadweynahae dambanaanta waan wada qabnaa dawlad iyo rayde dar allee waxaan daw ahayn looma qildayo hadal durugsan oo duuga baan kuu dulmarayaae dameer baa tegoo beriis yidhi doono laba gees inuu helana daayo wuxuu dib uga soo laabtay isagoo dam labadii dhagood duul ka soo dhigay waxba kama duwanin daannadii loogu duur xulae hadduu dagaalku baabba'a inaan laga dambaynaynin nin dareen leh wuu garanayaa doqolna yeelkiie afartaasi sidii daad qulqulay dilil ma qaadsiiyey dacal kale haddii aan doyoon idin dareensiiyo deerada iyo cawshiyo bicii dawga miranaya aarkii dinnaahiyen jiriyo darannadii goosha dulweynoo maroodiga shabeel duur dhabacanaya harimacadyadii limaleh iyo daaqsin garanuuga intaasoo isbaal daaqaysa iyo daraan la koobayna ayuu beri dalkeennan ilahaa daan kastoy tahaye maanta se waa daleel madhan dhulkii daawashada guuday iyo waa durxumo taaganoo daawo loo helin dacal kale haddii aan doyoon idin dareensiiyo dal waliba waxbuu caankuyoo lagu daneeyaae innagu duunyada iyo xoolahaan daawo u lahay darab iyo mar baa laga cunaa duxiyaydaan dambar iyo mar baa laga dhamaa doobi caanaaha iyagaa diraacad iyo hanfiga lagaga doga maantana bacbay daaqayaan daadsan kaymahae dirqibay ku sii nool yihiin daawaxii hadhaye iyaba waa darxumo taaganoo daawo loo helin
calaacal kale haddii aan dayoon idin dareensiiyo dikhawgiyo jawigan doorsamiya cimiladaa diirtay deegaankan kululaanaya dunida saameeyey digriigii la saaraaba wuu sii dallacayaae daafaha adduunyada markii laga daraaseeyey ogsijiintu diiqa bay ku tahay dalalka qaarkoode hawadii dabiiciga ahayd laysu dacareeya iyaba waa darxumo taaganoo daawo loo helin waxba gabayga yuu ila durkine waxaan ku soo dayray war daryeelkiisa deegaanka waa hoos in loo dayo wasalaamu calaykum daraamadii iyo fariintii ay xambaarsanadayna soo gaadhay bartaasaynu ugu dhantay kollay daraamadu shan iskuulo mar baa loo qabanayaa maanta 5 iskuul baa bartan martiinu ugu ahaa iskuulka Guriyasoomo Qurac Dheer Cabdiraxmaan Gariyare iyo Aljasiiri Maxamed Axmed Cali khamiista dambana waa 5 kale oo khamiisteedu ah bishu ay noqonayso 14 ayaa 4 kalena waa 26 Juun Riis Sheekh Yusuf Kaynuun iyo ay Al-Khayr waa bartan lagu qabanaya iyadana khamiista gaar shanta iskuulna bartan ku qabsanayna sideed iskuul ay intermediate-ka iyaga tartan baa iyagana loo qabanayaayo bisha 7 bay tartamayaan iskuul walba waxa loo sheegay inuu diyaar garoobo tartanka kubadda cagtana waa inoo khamiista dambe yar riwaayadana soo noqota oo sida ka sii xiiso badan ya daawasho wanaagsan dhamaantiin بسم الله الرحمن الرحيم أنيقو علي أحمد بلايح مامورها دكسيغا سري محمود أحمد علي waxaanu maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bishii shanaad 2009 waxaanu halkan ku qaabilay qaybo ka mid ah dugsiyo kale iyo hay'adda SSFI iyo qaybo ka mid ah dawladda hoose iyo ururka Soyonda oo ah urur wadaniya kuwaasoo ka hadlayay maaragtay qaabka ugu fiican ee loo horumarin karo caafimaadka guud ama sanitation-ka iyo siyaabaha xashiishka la isaga maaragtay basriyo oo wacyigelinaha halkan oo iskuulada loogu soo bandhigay waxaanu aragnaa waxa weeye inuu ahaa mid naajixa oo wax weyn ka tari doona fariintaasi horumarinta magaalada caafimaadkeeda iyo bulshada wada shaqayn wacanna ay noo tahay annagoo ah wasaaradda waxbarashada dugsiyada hoostaga iyo ma garanaysaa dawladda hoose inaanu ka wada shaqayno macnii wacyigelinta dadka iyaga hawlahooda caafimaad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa kaloo waqtiyada soo socda sida ay u qoondeeyaan qolada Soyonda iyo dawladda hoose in kaltan noocaasa uu jiri doono oo meelo kalena laga horumarin doono aynkaas oo kale iyagana laga bilaabi doono waa mahadsantihiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay message-ka wanaagsan iyo fariinta fiican ee caafimaad ee soo gaarsiin ururka Soyonda hadda tihiin iyo dawladda hoose iyo SSFI waa mahadsantihiin bismillahir rahmaanir rahiim anigoo Yaasin Jaamac Axmed oo agaasimaha ururka dhalinyarada ee Soyonda oo ah ururka soo qabanqaabiya maanta daraamadan ka dhacday iskuulka secondary Maxamed Axmed Cali ururka daraamadaas oo magaceedu ahaa qashinka oo daristaan cudur buu dilaacsha runtii oo oran karo maanta riwaayadda markii la soo bandhigay waxay gudbisay fariin aad iyo aad u ballaaran oo ay gaarsiisay dhammaan ardaydii joogtay oo oran karo waxay ahayd ka yimid fikir kala duwan oo bulshada ah taasoo ay gaarsiin doona mid walba gurigooda waxaan bartan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa iskuulka Maxamed Axmed Cali maamulihiisa Cali Axmed Balayax oo isagu waa iskuulka noo hosting gareeyay maanta doorkan iyadoo ay kaltan amaba hadba iskuul meerta si meerta ah hadba iskuulu hosting gareeyo doona ma marti gelin doono daraamadan oo wari islamaan iskuulada ku soo wareegi doonta waxaan filaynaa khamiista dambe inay noqon doonto haddii Ilaahay yiraahdo iskuulka hoose dhexe ee Shaqaale Cismaan ama Egas Riis aan filayno waxaan bartan aad ugu mahadnaqaynaa hay'adda SSFI iyo dawladda hoose oo iyagu barnaamijkan wada runtii anagu doorkaygu waa wacyigelin aan wacyigelinayno bulshada runtii waxaan filayaa haddii barnaamijkan sida ugu wanaagsan loo manage gareeyo qashinka inuu qashinku iyo inay yaraan doonto laba faa'iido laga heli doono waa ta koowaad in qashinka bilicdii magaaladu ay noqon doonto mid qurxoon oo ay noqon doono mid streetyada maanta qashinku buuxsamay ay noqon doonaan meel street muuqaal wanaagsan leh iyo talabaad oo ah in caafimaadkii khatarta nagu keeni lahaa biro maray ka dilaacaan ay yaraa doonto
iyo bilicdii iskuullada kale iminka waxyaabaha ugu darani waxa weeyaan dadku way yaqaanaan sida guryahooda xeeshka uga soo qaadaan oo nin walba gurigiisa uu nadiifiyo inanta joogta ama inanta reer waliba waxa soo xashiishiya xeeshka laakiinse waxaan garanayn meelaha public ah in sidii looga basrina qof walba school area campuskiisa amaba environmentka iskuulka meelaha public ah way ku daadin yaqaanaan waayo meelaan ciidano lahay naga daaya ciidaneed ka difaaci kareen hor joogaan ka ahayn laakiin jagada barnaan way yaqaanaan jagadii ma hebeltay jagadii reey hebeltay cid ku dhiiranaysan ku shubtaa ma jirto sidaa daraadeed qashinkan maanta ina wareeriyay wuxuu noqday hoy u noqday meelaha iskuulada oo ah goobaha waxbarashada marka waxaan ugu dadaalanaa inaan taageer gareeno iskuulada sidii ay campuskooda noqon lahaayeen meel nadiif ah si ardayga uga soo baxaya uu noqon arday nadiifsan oo caafimaad qaba ayaan awareness-ka u taageer gareeno iskuulada u tagno waxaan rajaynayaa iskuulada haddii aan ku guuleysno barnaamijkan iskuul campusku nadiif ka noqdo xashiish qashin in mujtamaca intii kalena ka fayoobaan doonaan aad iyo aad u mahadsan dhammaan howlwadeennada hawshan la qabanqaabiyay kamaramaanka iyo dhammaan dowladda hoose aad iyo aad u mahadsan aad baan u mahadnaqaynaa maamulaha dugsiga sare maxamed axmed cali axmed dolaye dhammaantii aad baa u mahadsantihiin waxaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu marka hore waxay la tahay kolley in idin soo gaadhay martiqaadkii aan idiin soo dirnay ee ahaa tababarkan maanta aan u fadhino aan ugu talagalay markaa tababar ku saabsan in aqoon kororsi aan u samayno shaqaalaha nadaafadda ee isbitaalka Hargeysa markaa kani waxa weey waa qayb ka mid ah markaa mashruuc hay'adda JESFI oo hay'ad Talyaani markaas inay la degan dhawaan soo degtay oo ka shaqeysa markaa maareynta qashinka adag oo ku soo Hargeysa mashruuca dawladda oo Hargeysa la wadno ayaa waxa ka mid ah markaa maareynta qashinka halista ah amba qashinka ka yimaada agabka caafimaadka ee isbitaalada waxaan imika aan la shaqeynayna waxa weeye isbitaalka Hargeysa ee guud iyo isbitaalka markaas TB dan la shaqeynayna hay'adda JESFI inta badan waxa maanta ay noogu tala gashay waxa weeye tababarkaas markaan bixino kadib inay tusto shaqaalaha caafimaadka markaa qaabka gubista qashinka ama moofada inay iyadana tusto iyo qaybinta qalab loogu talagalay markaa qalabka ururinta iyo badbaadada howlwadeennada caafimaadka waxayna la jooga kulley madax sare oo joog isbitaalka waxayna la jooga iyaguna saraakiil ka tirsan dawladda hoose ee Hargeysa JESFI bayna la joogtay iyadana oo project manager-ku hadhow tolo uu idin tusi doono ama madaxa mashruucan Hargeysa si qaabka loo gubi doono markaa moofada كل أنت حسن مركا ما أنت أنا وركن وشوجنا سي مركا إنه سي official أنا قفر نوع كسور دوينا يا عبد السمد محمد إبراهيم أو مقاسمها واحدة حلي قاسمها أرمها برشة الدولة هوسة سو ينوي هذا كلمة ده فرتان كانوا وشوجنا ما أنت كسور دواسي كسور قبل ياشا ما هذا أما نلاحظه جديد إسبتالك جديد قبلك عفماتك madaxda kale ayaguna nagala soo qayb galay hawshan seminaarka iyo wareejinta qalabka loogu talagalay in lagu wareejiyo isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa qalabkaas oo run ahaantii aanu ka helay hay'adda JESFA oo run ahaantii waxyaalo badan nagala shaqeysa dhinaca xashiishka ama xashiishka adag waxaan maanta farxad weyn oo ah in aanu idinkala soo qayb galno seminaarkan gaaban ee loo furayo dadkii gacanta ku lahaa hawshan nadaafadda isbitaalka magaalada Hargeysa iyadoo